markaan eegay da'deyda oo dhowr iyo 7 sano ah markaan eegay duruufo badan oo aan qiimeeyay markaan eegay waxay ila noqotay tartanka waxa ka saari kara dhig cusub dad cusub halkaan ninoo naga maqnaa ayaa nagu yiri reerkaasi ma gayo anaa ururka iskale anaana joogaya intii kale waa kuwaas waxaan nala noqotay weelka dahabka ah haddii awda la keeno ama afka baan ku dhuftay beelaha gudubiirsay aan dhex keeno inay gelinayso ficil halkii xabadda ay ku raadsan lahayn xaqooda inay ku raadsan karaan far iyo gacan iyo cod laakiin waxaan idin leeyahay hadda qowmiyoonina tuug walba tuug buu wataa ina tuugina wata doqon walba doqonkiisu wataa maxaa doqonkiina cilada ka dhigay maxaa doqonkiina agoonka ka dhigay beelaha sool iyo sanaag bari ee maanta maqan shisheeye maaha ee maanta maqan huwan maaha waxaa shirka buuxa waa wada ergooyinkii waxaa nasiib wanaaga waxaa nala joogaa guddoomiyihii iyo xubin aada qaali oo ururka maxaan dhahaa guddiga diiwaangelinta say u xaqiijiyaan habsami u socodka shirka haddaba shirka iyo maxaa kalifay ayaan rabaa dhowr eray keliya inaan ka idhaahdo sidaad ogsoon tihiin iyadoo la raacayo shuruucda dalka 10kii sanaba mar ayaa waxaa la furay ururadii iyo axsaabtu inay ku tartamaan kadibna 3 xabba ay ka soo baxdo 3daana ay ku tartamaan maaragtay madaxtooyadii duruufihii dalka ka dhacay ay ogeydeen shuruucdii waxaa loo arkay xal in la yiraahdo ururadu ha ka hareen doorashada madaxtooyada laakiin doorasho isku sidkan ee ururada iyo xisbiyada ayaan hawada galeen xisbiyada lagu tartamayo arintaas waxay ku keentay niyad jab iyo calool xumo iyagoo qaar badan ay u arkayaan inay arrimahaasi aan sharciga waafaqsanayn laakiin kulli annagu ururkaygu waxaan ahayn kuwii koowaad ee ogolaaday iyagoo danta dalka qiimeynaya iyo xaaladda markaa la marayay inkastoo habeexsanaan ay ku timid ururadii muddo markii la joogay waxaa soo dhawaaday oo go'aankii la isla gartay in ay xaqiiq tahay doorashadu inay dhici doonto Allah ka dhigay 13 bisha November maadaama marka ay dhowr bilood ka hareen albaabkiina ay soo istaagtay guddiga diiwaangelinta oo yiri cidii isku biiraysa 14 bisha ayaa ugu dambaysa ee waa inay xaqiijisaa waxaan abaabulnay guddi ballaaran oo gobolada ku soo wareega guddidii maxaa ahaa markay soo noqdeen waxay dhaheen kalgacaylka dadku noo hayo dhib kastoo na haysata waxaan ku talinaynaa inuu ururku tartamo ee aanu saa ku niyad jabin ee uu tartankiisa wato haddaba markii la yiri waa la markii ay dhacday waqtigii sidaas baan ku gudbinay inaan ururada tartamaya aan ka mid nahay laakiin aniga xaqiiqdii hortiinan maanta kale yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan jecelahay baan u sheegayaa waxa weeyaan markaan eegay da'deyda oo dhowr iyo 7 sano ah markaan eegay duruufo badan oo aan qiimeeyay markaan eegay waxay ila noqotay tartanka waxa ka saari kara dhig cusub dad cusub himilo cusub oo iyadu rabta sida awgeed halkan waxa wada fadhiya dadkii joogay maxaan dhahaa hogaankii iyo fulintiiba waxaan soo bandhigay arintaas waxa la yiri waxaan ku yiri ama qof idinka itaal leh oo dhaqaale leh oo awood leh idin ka soo dhaxbaxo ama xataa reeraha beelaha ka soo jeedaan qof hanti leh keena oo wada ama xisaabta ama ururada ku biira halka la wada fadhiyay dhammaan waa la waayay xisbi lagu biirana waa la waayay hantiileed ururka ku dhex jira anaa ugu firfirroona waa la waayay arintaas markay dhacday gudoomiye halkan waxa fadhiya gudoomiyaha diiwaangelinta saaxiibkii baan la hadlayaa halkan waxa fadhiya ururka barwaaqo wuxuu leeyahay 5 gudoomiye ku xigeen hoggaanka ah shantii hoggaan ka koowaad waa aniga oo ah Dr. Maxamed Cabdi Gaboos كلمات حمدة جامعه سو استقل كان أو حمدة قعنت تصدق وهو كان كلمات أورك
hoggaanka saddexaad waxaa jooga Khadar Cilmi Barre saddex hoggaanka afraad waxaa jooga Aadan istaag adiguna gudoomiye shantii hoggaan ee ururku lahaa hal nin baa naga maqan nin kaliya naga maqan ninka cabanaya naga maqan waxa marka way joogaan haddana markii aan ummadii dhex galnay tala raadinay waxaan noo muuqatay anigoo himiladaas ay si dhaba hadeerna ay ugu muuqato inaan Soomaaliland jiritaankeeda iyo horumarkeeda ay ka dhiman tahay in beelaha maartay walaalaha weel lagu wada fariisiyo xuquuq isku mid lagu wada fariisiyo ana ka badan micnaheedu maaha dalka ana ka xiga ana jabadu soo dagaalamay maaha micnaheedu dalka ana ka xiga ana gudoomiyaasha wada qaadanaya micnaheedu maaha ana dalka ka xiga gudoomiye cabasho iyo tabasho ayay haytay ka dhalatay inay Soolmaanta ku maqan tahay waxa halka joogay Cali Khaliif saaxiibkay Allah u naxariistay hadaladiisi aan dhiigeen iyo noloshana ka go'ayn ee ahaa warhooy kalgacayl buu la yimid walaaltinimo la yimid midnimo la yimid maanta tabashadii halkay gaartay waad arkaysa waxa ii muuqday walaalaha kale ee darafkan awdal ee iyana cabashadoodii aan guuxoosa ognahay in haddaan wax laga qaban oo xukuumadda maanta Muuse Bixi madaxweynaha kula talinaya inuu cabashadaas oo ugu weyn tahay inay helaan weel xisbi ay ummadda kula tartamaan inay helaan jidka bini aadamku maro ay talada dalka wax ku yeeshaan maaha inay gadaal kaga yaalaan inay dabada ka fuulaan gaari rag kale leeyahay inay gobolka gudoomiye nasiib darro halkaan ninoo naga maqnaa ayaa nagu yiri reerkaasi ma gayo anaa ururka iskale anaana joogaya intii kale waa kuwaas waxa halkaa hortooda la keenaya cod waxaan ku niri kaalayo ka soo qaybgal ergadu waa ergadaadii dadku waa dadkaagii lagama xigo anaa iskale buu taagay wax kale oo farqi oo noo dhaxeeya haba yaraatee ma jirto meel xeer ku qoran yahay hadduu isagu leeyahay haddaan anigu leeyahay maxay qabanayaan hoggaankani maxay ka qabanayaan xuquuqdoodii ururka ay u soo galeen haddii qof gaar leeyahay gudoomiye sidaas baan maartay ururkii waxaan jeclaanay inaan baadi goobno cid wadi karta hagi karta waxaan nala noqotay weelka dahabka haddii awdal la keeno ama afka baan ku dhuftay beelaha gudubiirsay aan dhex keeno inay gelinayso ficil halkii xabadda ay ku raadsan lahayn xaqooda inay ku raadsan karaan far iyo gacan iyo cod waxay nala noqotay quruxda doorashadu inaanay ku jirin 13 xisbi iyo ka annaka nagula jiro mid 14aad raba inay isku wada reer noqdaan reerkaana xabadii haysteen madaxa iskula jirto marka gudoomiye anigu lacagna nin qaata waan ka han weynahay waana ka han weynahay qaranka iyo taariikhdiisa nin maaragtay aragti baa ii muuqata sahan baa ii muuqda geedina waan u socdaa waxaanan ku mahadinayaa xisbiga guddigiisa fulinta iyo hoggaankiisu in 2 jeer 3 jeer in ka badan arinta laga dooday oo iyagoo saxiixay halkaas uu joogaa Khadar ma saxiixida shirweynayn la qabto istaag fariiso xamda ma saxiixida shirweynayn la qabto istaag aadan ma saxiixida shirweynayn la qabto cad baan ku soo duubay yaa kale qofkii afraad ah aniga annada waa anigii maaragtay gudoominayba madax gudoomiye halkaas ummadda waxay u dhameyd ururka in la qabto shirweyne xalaal shirweynaha maxaan go'aansanay koow waa shirweyne aan caadi ahayn ergadu weynay hata ergadii shirweynaha kama xigna markaysa cid hagaysa ee shirka hagaysa waa 3 nin waa gudoomiyihii buugaad haysataan buu ku yaalaa ee hore xafiiskiinu yaalaa Cusmaan oo shirkii hore gudoomiyaha buugaad haysataan buu yaalaa farxaan oo gudoomiye ku xigeenkii hore xafiiskiina yaalay hal nin baa naga baxay oo xukuumaddu ay xilsiis kaliya xilkiina waa ka maanta tan la buuxiyay waa kii xilka la siiyay gudoomiyaha
annaku waxaan u aragnaa aniga iyo ragga ururkan hogaaminaya iyo fulintiisuba oo aan waraaqahooda way wada saxiixeen maaha inay dhaheen saxiixoodii oo dhan baan wada hayaa gudoomiye waxaa markaa jira xeer 14 waxa uu qorayaa horta shir caadi ahaan goorma la qabtaa shir aan caadi ahaan waxa la qabtaa duruuf adag oo kaliftay shirweynihii caadiga ah inaan la sugi karin annaka waxaan hor yimid duruufta caadiga oo ah aniga shirka hogaaminaya inaan sii wadi karin markaan xaqiiqda idin sheego waxaan hogaaminayay oo kale oo na riixayay beel culus oo taariikhda walaaltinimo Soomaaliland hooyadeedii waa magaaladan Boorama gudoomiye beeshaasina inay banaanka ka tahay doorashooyinka dalka waxaan hagayay waa inay u kacdaa inay maarta xaqeeda ku doonato waxaan idin ballan qaadayaa magaalada Boorama waxaan shirka ugu qabanay inaan dareenkiina kicino waxaan idin ballan qaadaynaa beesha dhexe qof allaale qofkii wax garanayo dhan inuu codka dhisiinayo inaad xisbiga koowaad noqon doontaan baan idin ballan qaaday kuwa mangaabkana waxba ka suginina kuwa cadaawada abuura waxba ka suginina kuwa SNMta idin kugu faar waxba ka suginina kuwa maaragtay qabiilka uu madax maray oo ana reebel ana laan dheer waxba ka suginina ummadda Soomaaliland beelaha shacbiga dhexe idinku idin taagan yahay run idin sheegay maantay xeerka dalka madaxweynayaal ba tartamaya ku xigeenna jira beel kasta oo reer awdala xaq bay u leedahay kay jeceshahay inay doorato ku xigeenada laakiin waxaan idin leeyahay hadda qowmiyadna tuug walba tuug buu wataa ina tuugina wata doqon walba doqonkiisu wataa maxaa doqonkiina cilada ka dhigay maxaa doqonkiina agoonka ka dhigay maxaa codkiina loo kala qaadanaya oo loo kala iibsanaya ma marka waxaan hadalku yaanu ila dheeraanay waxaan idin leeyahay quruxdii Soomaaliland aasaastay baatiin xumaatada idinku dhacaysa ama hore idinku dhacday waxa ka weyn waxa idinka dhaxeeya Soomaaliland iyo shacbiga Soomaaliland ayaa idinka dhaxeeya idinka la idinka doonaya marka dalka qabataan waxaan idinku ballan qaaday Ilaahay tiisa kuma darin laakiin inaan idin cidiyo nooga baxaan sida madaxtooyada ku soo fariisan lahayd idinku cidna baryin cadaaladana suga markaa waxaan kaloo magaaladan iyo dadkeeda ka codsanaya beelaha Sool iyo Sanaag bari ee maanta maqan shisheeye maaha ee maanta maqan huwan maaha ee maanta maqan cadow maaha beelahaasi waa Soomaaliland haddaan Soomaaliland ma iska dayno marka maxaan u haysanaa iyaga xuquuqda aan ugu haysanaa waa inay nala yihiin hadday nala yihiin dadku way isqaban karaa waa walaalaheen xaqeysana waa leeyihiin bini aadamku labadii wiil aadam dhalay baa isqoonsaday labadii wiil aadam dhalay baa isdilay ilaa maalinta yawm alqiyaamo waxa ugu dambeeyay ficilka ay isdili doonaan baa ugu dambeeyay marka bini aadamku isqoonsan karaa laakiin su'aashu waxa way war dadkani Soomaaliland ma yihiin sida aad ugu haysatid mise maaha haddaanay haynan iska dayno shaqadoona iska xirra hadday yihiin waa inaan u lugaynaa waa inaan carab wanaagsan kula hadalnaa waa inaan har iyo habeen u soo jeednaa sidaan ku keeni lahayn walaalaha oo idinku waliba hor kacdan umad hadda tiray awdo gudoomiye markii aan baaray markaan dad badan la hadlay waxaan helay rag qiimo leh oo awdal u dhashay oo dhammaantood fakarka ku guuxayo inay weel yeeshaan kiciyaanna ummadana midayaan ragga faraha badan ayaan nimaadnay waxay iska soo xil saareen hal nin waxay dhaheen ninka gudoomiyaha noogu dhib ballan waxaan qaadeenaa inay awdal gariirtay Ali Beegsaaw istaag xaalmadeed waxaan idinka codsanayaa cod baa la qaadayaa ururkii maanta saacada laga bilaabo markaad Ali beegsataan albaabkaasaan ka baxaya waayo waa urur xeer yeelan doona xeer kala hormarin doonaa bila xeer waxba lagu ma soconayo Ali beegsi waxa uu mathala iyadoon mid lahayn iyo waliba beelaha salal saylac ciise waa garabkiina wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh